بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta golaha midowga murashaxiinta waxay isugu yimaadeen shirkoodii caadiga ah routiinka ahay ayaga oo diiradda ku saaray xaaladda dalka uu marayo guud ahaan iyo 24 saac la soo dhaafay waxyaabaha soo kordhay ee ku soo kordhay saaxada siyaasadda ee bariyahan dababa xoogaa iska cakirnay. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan u cadeyno horta muddo ugu horeyso mowqifka ama mawaaqifta ay taagan yihiin midowga murashaxiinta. golaha midowga murashaxiinta muhiimadooda koobaad waxa waaye aanay ahayd muddadii la soo dhaafay oo dhan dalkan in ay doorasho ka dhacdo, doorasho dimuqraadi ay ka dhacdo, dalkan in aan maxaan ku raahdaa extension iyo dimuqraasi iyo wax lamida iyo aanay imaanin si deganaansho iyo miir iyo mas'uuliyad ay ku jirto ayaanay midowga murashaxiinta intaa ay u soo garab taagnaayeen broseska doorashada socday. arrimaha aan raalli laga noqon karin ee xanuunka badan ee marar badan dhacayeen ay dulqaad badan uga muujiyeen, ra'yiga toosan ay ka qabaan ay muujiyeen. hase yeeshee waxaan rabaa maanta in aan meeshaan ka jeedino xaaladda dalka ee siyaasadda meesha ay marayso. maanta waa 26 December 2021 27 December oo berri ah sanada ka soo wareegtay maalintii 27 December 2020 ayay ahayd baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole inta la dhaariyo inay shaqo bilaabaan oo golaha shacabka iyo aqalka sare oo isku jiro baarlamaanka ah ay shaqo bilaabaan. sanada ka soo wareegtay maalintii baarlamaan ma aha maalintii doorashada inay dhacdo ay ahayd, maalintii dalkaani baarlamaan shaqaynayo oo sharciyad leh inuu lahaado ay ahayd ayaa sanad ka soo wareegay. maanta oo 26 December la joogo baarlamaanna ma hayno, soomana muuqdo. nasiib darrada ugu weyn waxay tahay intaas ummadda Soomaaliyeed horaan ugu sheegnay mar kalena aan ugu celinaynaa caqabadda doorashada dalkan taagan oo aanan laga awalna in la bilaabo hortaagnaa, markii la bilaabayna maalin walba meel inuu ka carqaladay oo hortaagnayna waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iyo maantana waa taagan yahay. warka xalay ka soo baxayna intaas u buudugsan yahay. warkaasi waa diidanahay, dan Soomaaliyeed kuma jirto, dowladnimo kuma jirto, wadankan oo mas'uuliyad darro la muujinayo oo qar laga tusi tuurayo ayaan u aragnaa. mar kale cod dheer ayaan ummadda Soomaaliyeed ugu sheegaynaa waxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay xalay waali waaye aanan miir iyo deganaanshiyo iyo mas'uuliyad intaba aanay ku dhehnayn. annaga warkaasi waa diidanahay. waxa uu sheegay sharci ma dugsana, xikmad ma dugsana, Soomaalinimana ma dugsana. dulqaadka dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo ummadda guud ahaan shacabkana in dayuusnimo loo qaataay sax ma aha. madaxweynaha dadka caqligooda inay Farmaajo dadka caqligooda inay dayuus yihiin u qaatay dulqaadka ay dul qaadanayeen oo la xajaclada ay ka haysa dalkan. dadka Soomaaliyeed shalayna hore waa ugu dignay, waa u sheegnay mas'uuliyadda dadkay u dhiibanayaan inay ka fiirsadaan, markay u dhiibaan kadibna inaanay ka harin ay ku ilaashadaan. sanad kadib muddo xileedkiisa markuu dhammaaday maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabadda ugu weyn ee taagan ka ah. midowga murashaxiinta ummadda Soomaaliyeed waxay u sheegayaan arrintaasay ifinayaan. waxaa kaloo u sheegaynaa wadda aan ahayn ma furra waddada ra'iisul wasaaraha uu hoggaanka ka yahay madasha muxuu ahay wadatashiga qaran oo ugu yeeray in la isku yimaado wixii naga qaldamay ansaxno. doorashada waa qaldantay, waa qalloocatay. intii ay qaldamayso dhanna waa sheegaynay, waa soo taagnayn maalin walba meelaan sheegayn. hadday tahay guddiyada la dhisay koow markii horeba haddaa la arkay guddiyadii waxay dhaleen. waxaan sheegaynay qaabka iyo habraacyada la soo saaray
sixitaan siday u rabaan haddaa la arkay inay sixitaan u baahan yihiin weli lagama daahin masiirka ummadaani degdegsiinye iyo daahid midna ma geliyo maanta la sixi karaa prime ministerka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinka wixii ka qaldan in la saxo midaasaan ayidsanahay waa ku baaqnay horaan ugu baaqnay maantana mowqifkaasaan taagannahay waa in shirka uu ku baaqay prime ministerka 27 December la isugu yimaadaa habraacyadii doorashada dib loo eegaa wixii ka maqanna lagu daraa wixii ku zaa'idana laga bixiyaa ra'yi cadaan ka qabnaa ra'yiga aan ka qabna ma qarsoonayn haddana ma qarsoomaayo waa joogaynaa maadaama shirkan uu yahay shir sixitaan suurtagal maaha intii shalay wax ka qaldameen keligooda isku imaanayo oo wax saxayan in la yiraa meelaan ku leenahay shirkaas talaan ku leenahay khibradaan leenahay sharciyadaan u leenahay inaan maxaan ku yidhaahdaye aan ka mid ahaano annaga keligeen ma aha waa in la ballaariyaa gogoshaas bulshada soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo soomaaliya daraynayo oo wanaag la jecel waa inay maanta soo fadhiisataa talada dadkii loo igmaday waa la qufeen dadka soomaaliyeed dalkan madaxweyney u doorteen golayaalay u doorteen golayaashii wakhtigoodiyaa dhammaaday ayagoo shaqadii loo igmaday aan qabanin talay u baahan tahay marka taladaasna in loo dhammaaday u baahan tahay wada ogol inay ahaatay u baahan tahay mar kale waxaan ku baaqaynaa inaan la qaldamin shirkaasna la wada yimaado lana waxeeyo madaxweynaha hore farmaajo asigoo ummadda soomaaliyeed oo dhan maqlaysa indhihiisa ah ayuu xilka ku wareejiyey prime ministerka doorashada inuu qabto caqabad iyo carqaladeynuu la hortaagnaay prime ministerka inay waxaan ay hore u socdaan madaxweynihii hore maantana waaba meeshaad aragteenuu kasii dhacayaa suurtagal ma aha dalkani doorashadiisa waa soconaysaa maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood oo mid la qaada kara aanan lahayn doorasho oo sida uu isagu rabee maskaxdiisa yartaa ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo uu hubo 100% inuu biri uu madaxweyne ku noqonayo isagu waa lagu tartamayaa ma aha iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaasuna kala doorsiinayaa waa iska joogayaa haddaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa labadaba mid la aqbali kara ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo doorashada masiirka ummadan waaye wax maan hal nin uu leeyahay kama soo bixi karto waxa uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo darajooyinka uu bixinayo diblomaasiyiinta uu magacaabayo uu ku laaluushayo meelaha uu wax ka taataabanayo dhan saraakiisha ciidamada loo yeerayo ee aan laga hadlayn al-shabaab iyo cadowga dadkan haysta sidee looga xoreeya ee la leeyahay 6 biloodba maraan shirweyne noocaana saraakiishu isugu imaan doonaa haddee calaamadahaasi waxa ay micnaheeda ku fadhiyaan dadka soomaaliyeed maangal waaye waana fahmi karaan waana aqri karaan waana fasiran karaan labadaas option ma kala dooranayno waa diidaynaa labadaba waa joogayaana ma ogolin oo horeyaan usoo diidnay saan rabaan ka yeelayaana ma ogolin maxamed cabdulaahi farmaajo maanka ha u soo noqdo soomaaliya walax asaga iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa oo ku maamuli karo waa ka weyn tahay waqtigii fursadda loo sii inuu ku maamulana waa ka soo dhammaaday meeshaasaan rabaa taas inaan dhigno ragga mas-uuliyiinta ee dowlad goboleedyada madaxweynayaasha ka ah waxaan ugu baaqaynaa in ay fududeeyaan ka soo qayb galaan shirkaas lagu baaqay prime ministerku uu ku baaqay la isugu yimaado laga tashado once for all ma hal mar laga tashado aan dib loogu noqon si dhammaystiran arrintaas muxuu ahaayey inay u dhammaato waxaan rabaa inaan ayadana qodobka aan ka dhawaajiyo shalay dabaaldeggii ciidanka booliska soomaaliyeed hadda ka hor hadaladeyda waxaa ka mid ahaa jirtay madaxweynuhu sidii ruuxaantii oo kale dadka kasoo dhex hadlaa warka shalay meeshaas khudbooyinka laga jeediyey midda farmaajo intenshinkiisa aheedee miduu mursal jeediye waaye ee miduu farmaajo jeediye maaha maxamed mursal
dalkan hadda ka hor uu khatar geliyey extension غayr sharci ah oo aan jirin uu ku dhawaaqay khatar u galay dalkan waa ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodiisa iyo dad mas-uuliyiin ah oo u damqanaya dalkan ayaa looga badbaaday khatartaas waa ogtihiin si sharci darro ah oo qawaaniinta iyo dastuurka aan waafaqsanayn ayuu 2 sano extension u ansixiyey shalay oo cid la qabtay cid ku raacsan iyo cid sharciyad u soo maray midna aanay jirin shalay warkiisa tiiyoo kale haddana ka muuqato waa ka digaynaa waddadaas waddo la mara ma aha waa xiran tahay golo shacaba waqtigiisi dhammaaday oo xildhibaanadii golaha shacabka ay qaarkood ay siritaran noqdeen oo kuwa kuraastii ay waayeen oo bannaanka ay mareen oo beddelkoodii waa la doorta laleeyahay taagtaagan yihiin maanta in la yidhaahdo baarlamaanaa jiraan shirinaynaan isu keenayna labada aqal ee baarlamaanka ka koobna haddii mid jiro maanta aqalka saraa jira golaha shacabka xaaladiisu waa saas mursal albaabkaas waa xiran yahay maxamed mursalow dhinac la aadan maaha sanadkii hore ilaahay ku ceeb asturay hadda ha u noqonin bisha abril ee sanadkan bilowgiisa ahayd ayaa ilaahay ku ceeb asturay ha u noqon waddo la mara ma aha khatar waaye kulama wadaagayo afkaaga erayada ka soo baxaya farmaajo ama asagu ha rabo ama ha kuu soo dirsado ama asaga ha ka timaado ama wuxuu doona ha noqdee farmaajo afkiisa ha ku dhahdo waxa uu rabo shalay warka maxamed mursal uu yidhi iyo warka xalay farmaajo soo qorayaa isle baarlamaankii yaa joogo loo yeerayaa iyo waa dhacay xilligii doorashada waa dhammaaday december uu ku egyahay iyo waxaasoo dhan cid dadka soomaaliyeed inay aqri waayaan waxaas macquul maaha anana maxamed mursal waddadaas ka joogo farmaajo shalow ku hoday mar kale yuu ku hodin ma soconayso dadka soomaaliyeed ma aqbalayaan hortiis jiraa waayey dalkan waddo aan ahayn waddadaas dimuqraadiyadda uma furna jamhuuriyadda saddexaad ee carta ka soo bilaabatay ilaa maanta waa qor isu dhiib xilligay leedahay xilligeeday ku qabsoomaysay dadaalada un maalmo iyo bilo iyo dibay ula dhici kareen laakiin sannadaa hadda soo wareegtay in haddana lasii wado sanad kale iyo sanad kale iyo sanad kale waa lasii joogayaa la yidhaahdo albaabada dhanna maalin walba midkii furmi tagababa lasoo oodo macquul ma aha fursadda meeshaasay jirtaa aad iyo aad ayaan ugu kalsannahay golahaas wadatasha qaran inay mas-uuliyaddooda gudan doonaan oo maxaanku rahdaa baaqa ra-iisul wasaare uu ku baaqa shirka ay aqbali doonaan imaan doonaan wixii khaldanna ay sixi doonaan inay yimaadiin isku yimaadiin isu soo hor fadhiistaan cibaado ma aha waa inay wax saxaan waan rajaynaynaa wixii khaldamay in la saxo waddadana saas ay doorashada ku dhammaato muddo kooban xaaladan dalkan kuma sii sugnaa karo haddaan dhinacaas taas uga baxo oo dhinaca amniga iyo security-ga ay u yeerto dhowr maroo horena waa ku celin ninna kuguma amri karo sarkaalow waxaan sharciga waafaqsanayn qof walba qawaaniinta iyo shuruucda lagu heshiiyaa ka weyn janan lagaa dhigyaa adoo shalay askari ahayd iyo maxaanku idhahdaa abaalmarin kale meel kale lagu waxeeyaa iyo adigoo maxaanku idhahdaa baagamuundo ah jidka joogi jiray diblomaasiya tahay lagu yiriyaaba macnaheeda maaha inaad dalkaana adiga aad mas-uuliyaddiisa qoorta gashan kartid dadka waxau ayaan daranaa la yidhaha aakhira ninkii cadaab ku mutaysta dembi uu nin kale daraaddiis u galay dembiga adiga gashay ilaahay kugula xisaabtamo waaba la gartaba laakiin nin kale daraaddiis inaad u dambaawdid waa meesha dadnimada ugu liidata war yaan dad kale loo dambaabayna dalkana ha loo turo ummaddanna annagaa mas-uuliyaddeedii iyo ummadnimadeedii iyo hoggaankeedii soo doonanay oo u taagan kuwa maanta shalay haye iyo kuwa maanta u socdaana waa isku mid dalka mas-uulaa laga wada yahay qofna mas-uul uma aha dalka sidou raba inuu ka yeelo wuxuu mas-uul ugu yahay wixii lagu doortay qawaaniintii iyo lawaaixidii inuu ku hogaamiyo haddii la iska waayana arrin la iska aqbali doono ma ahan xaaladda dalka meeshaasay maray meeshaasaanan la jecelnahay waxaanan rajaynaynaa 24 saac ee soo socdo shirkaasi inuu muxuu aha ifafaarihiisa ay noqdaan ay hore u socdaan maanta la joogo waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo kusoo gunaado midowda murashaxiinta hortabintiisa koobaad ama prioritigiisa koobaad waxa waaye doorasha dalkan inay ka dhacdo si nabada ku dhacdo doorasho la aqbali karo
wada ogol ah inay dhacdo waaye haddii la waayo maxaa dhacayo taas waa un hawl kala waaye maalinteedana waa ka hadli doona haddii la yidhaha aad iyo aad aa umahadsantihiin